company-geena qiimaha badnaay maxaa ka cusub halkay wax noo marayaan maxaa ugu dambeeyey halkeen joognaa maxaan hiigsanaynaa caawo waxaad heli doontaan insha allahu tacaala akhbaartii ugu dambeysay runtii taasoo ah mid ku farxad geli doonto hami ku geli doonto halkaad joogtay horay aad uga sii dhaqaaqi doontid haddii ilaahay alle ka dhigo insha allahu tacaala ka hor dhici maayo barnaamijka update-kii ugu dambeeyey 360gii haddii ilaahay alle ka dhiga si oo eega kambaniga oo noogu soo bandhigay waxyaabo fara badan mar dhow ayaad ka bagan doontaan waxaana insha allahu tacaala noo dul istaagi doona guddoomiyaheena mudane cabdicali sow sidoo kaleeto xagga back office-ka ama OES-keena meelaha muhiimka especially oo connectigana sidoo kaleeto itusoo itaabsi waxaa nooga dhigi doonta walaasheen amino qoran ama ogaanin halka aad joogtid iyo hiigsiga iyo waxyaabaha ka bedelan kambaniyaasha kale caalamka ka jiro waxa ayadana insha allahu tacaala na tusi doonto ama na dul istaaji doonto walaasheen ifraaxaddu dhammaantiin inta ka soo qayb gashay waxaan leeyahay guulaysta goobtii guusha iyo gurigii guusha ayaad joogtaan halka aan hiigsanaynana waa meel la hiigsada adduunyada meesha ugu fiican waxaan ku bilaabanaynaa aayadaha quraanka kariimka mudane maxamed cumar soo dhawaa musul وأنا ولا محمد أدوعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أجري حسنات رسولك وبكرا الله كاسي أنا قرأنا نجيسي كاس الله نقاف عاد مانتين سودو وقف كستو بوقي قلن كسو قادو شاهد سودو ويسو وربحنتي هدا أي نوب بلابنا حساب برامج كنا ستوس أيام قد قلني وحنا سي فرحة الله أنكو سودو وينينا سيو إيجينا أما قدوميهنا هدانا هاي bahda umbasif Soomaaliya mudane cabdicali sow soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا دمان walaalaha Soomaaliyeed ee ku midaysan shirkadda Onbasif warka caawa iska gaaban yahay aad u mahadsantihiin runtii kasoo qayb gasheen waqtigiina qaaliga ah aad soo geliseen أنا أتكفها إيديسنا كلفها إيديسنا سيدا أكتين أشرف مفرح يا وحو ماذا Onbasif 360 أربعة هذا الصون لافي أسبوع ويجي كسي هريرو ويماذا واحد أكتين إن مارت أنا سوقي إن مدة أنا كحير لين إن من كان لو يقانو بروسيسور كا ما مارت ميرشنت تيجي لو يقانو أو مارت كارك أو حاسيس مايو مركا أبديت كإنتي سبدن وحو بدن هاي حد أساسه بدل ما بيجران بقى رنتي لكن waxaan ka hadlaynaa markuu soo galo wuxuu weydiiyey saddex diina meesha joogto su'aal weydiiyey oo isku mid ah wuxuu yidhi haddii aad maanta maaragtay si maaragtay magic ama si sixir ah ama si maaragtay awood leh oo de awood qaasa oo ilaahay idin siiyo oo aad rabtiin inaad wax Onbasif maaragtay aad ku kordhisaan oo maaragtay ama aad la jeceshihiin inay samayso maxay ahaa laheed ku dhax marka red fan wuxuu yiri waxa jeclaan lahaa in arinta merchantiga ama processorka la fududeeyo ama maaragtay xal loo helo maatina wuxuu yiri maaragtay waxaan jeclaan lahaa oo u dhowdahay jawaab u dhow waaye laakiin wuxuu yiri merchant kaliya maaha waxa loo baahan yahay data center loo baahan yahay waxa loo baahan yahay ana waxyaalo badan loo baahan yahay marka wuxuu yiri wax walbo de kambanigan u baahan yahay horumarkiisa ku saabsan inay noqdaan wax annaga kaliya aan awoodeeda leenahay oo aanan macnaha dariska aanan dib ka doonanin oo aanan cid u hoos fadhiisanin wax annaga dan noogu jirto ama maaragtay kambanigeenu ku horkacayo taas ayaan jeclaan lahaa yiri haddii aan awood leeyahay caawa inaan fududeeyo Krisa asigana la weydiiyey sidoo kaleeto wuxuu asna ku jawaabay labadaas jawaab ayaa maskaxdeeda ku jirtay laakiin wuxuu yiri saaxiibada ayaa qaateen laakiin aniga waxaan jeclaan lahaa yiri in Onbasif ay xal u hesho dhibaatada ka jirta adduunka baahida dagaalka canuga maaragtay agoonka ooynaya maaragtay dhibaatada adduunka jirta inay maaragtay sida ay xal helo u tahayba
inay soo dedejiso maaragtay sida ay xal ku heli lahayd taasaan aniguna jecelahay oo haddii aan awooddeeda lahay aan samayn lahay taas markii laga gudbay wuxuu yidhi xoogaa jaadkuu fiirfiiriyey dadkii maaragtay meelaha ku teebgaraynayay jaadka 2 eray 3 eray oo kasoo qaatay wax muhiima ma aha wuxuu ku xijiyey maaragtay wuxuu yidhi waxaanu samaynaynaa ganacsi si xaq ah oo xalaal ah maaragtay si xaq ah oo xalaal ah oo aan musuqmaasuqana lagu saxaayo wuxuu yidhi waxaanu yeelan doonaa waxaanu qabsan doonaa hawri internetka annagoo ulajeedadeedu tahay inaanu samayno ganacsi xaq ah xalaal ah oo ah mid musuqmaasuqa iyo maaragtay laaluujka iyo waxyaabaha qaladka ah oo ka jira maaragtay ku saxayno ayaan samaynaynaa and we will own the internet macnaha internetkuna annagoo gacantayna soo gelaya maraan dheerayn wax walba oo aan idhahdo wuxuu yidhi anything I said I will die to make it happen wax walba wuxuu yidhi inaan internetka aan lahaa haynan waxa ku caddaa wuxuu yidhi wax walba oo afkayga ka soo baxa ama aan idhaahdo wuxuu yidhi ama waa dhimanayaa ama waa samaynayaa I will die to do everything I said wuxuu kaloo yidhi haddii aan maanta maaragtay aan qiimeyn ku sameeyo dhahay waxyaabaha ma arkino aniga aan jeclaa lahay inaan maaragtay haddaan evaluation ku sameeyo heerka ay ila marayaan wixii aan jeclahay evaluation waxaa la yidhahdaa qiimeyn haddaan ku sameey tago dhahay heerka ay joogto wuxuu yidhi maantadan laga bilaabo xadarkan wuxuu yidhi waa idinla dabaaldegi lahay I will be celebrating with you right now laakiin wuxuu yidhi maaragtay si maaragtay professionalism waxaa la yidhahdaa dee qaabka macnaha wax loogu talagalay oo la diyaarshay camal macnaha wuxuu ka hadlayaa asiga maadaama uu 3 su'aal iyaga weydiiyey asigana wuxuu yidhi de wixii aan jeclaa lahay oo aniga aan rabi lahay camal wuxuu yidhi go-aankeedii iyo qaabkeedii waa helay waana jeclaa lahay inaan maanta idinla wadaago laakiin wuxuu yidhi diyaar uma yihi hadda oo macnaha si formal ah oo professionalism ah ayaan rabaa inaan u sameeyo isbuuca dambe ayaan idinla wadaagayaa runtii arrintan waxa waaye uu sheegayo waxa ka muuqatay farxad waxa ka muuqatay meel uusan malaysahaynin inuu maaragtay wax uu u malaynayo inay meel fog ka soo socdaan inay meel si fudud ku yimideen ayay tilmaamaysaa waayihii hore oo aan ka qayb galnay ha noqoto FIFA World Cup qadar ha noqoto burj khalifa dhismihii laga gatay iyo xayeysiimihii la sameeyey iyo maaragtay heshiisyadii uu la galay United Arab Emirates iyo maxaa la yidhahdaa train stationkii jaytekskii hadda u dambeysay hadda waxa ka socda Sharm el-Sheikh intaas oo dhan iyo waxyaabihii mar walba maaragtay on-basi horumarka ay gaaraysay oo aan tagno waa new top ash macnaha caawa maaragtay bambow riday aa la dhahaa maogtahay marka wuxuu yidhi bambadan wuxuu yidhi mideydii wuxuu yidhi waa ash bam oo ugu magac daray runtii wax weyn waaye isbuuca dambe ayuu noo sheegi doonaa waxa ay tahay laakiin runtii waxaan u malaynayaa inay tahay wax aad iyo aad maaragtay kambanigan dharkey waxaa ka muuqata ereyadiisa haddii aan kusii socdo professional and speak the news for macnaha maanta waa idiin sheegi karaa huu yidhi laakiin wuxuu yidhi next week aan idiin sheegayaa wuxuu kaloo ku daray in arrintii merchantiga la xaliyey oo arrintaasu ay dhammaatay ha noqoto criptaga dhinaceeda ama ha noqoto visa car master carkii la isticmaalayay labada dhinacba in maaragtay xal loo helay waa la tijaabiyey yidhi kaararkii waa lagu tijaabiyey it's been tested and all works will confirm ina waana life ayay noqonaysaa huu yidhi anytime beritole ama beriga ku xigta beriga ku xigta iyo 3 bilood iska noqoto xataa maantadana la filinaya haduuta waxaan dhegeysanayay Marty Digamo iyo ninka la yidhaahdo Chris Johnson oo maaragtay habeen walba soo gala kowda habeennimo xaggayga Soomaaliya ma qangalabay u aadan u malaynayaa aan dhegeysanayay waxay dhahayeen isha ku haya OES kiina anytime ala soo dhigi karaa ala dhigi karaa waa okay marka wuxuu yidhi
waxaanu xal u helno yiri muddo dheer ma aha wax kaaban wax ku meel gaara ma aha si muddo dheer we have a solution for a long term for everything we have a solution that should make everything good macnaa xal wax walba wanaajinaya si fogna u wanaajinaya si fog wuxuu ka wadaa macnaa ma aha wax inta laga bil isticmaalo haddana si uu noqonaya ama bil isticmaalo haddana si kale noqonaya ma aha long term xal ayaan u helnay si wanaagsan wuxuu kaloo ka hadlay optionka si ma arkino invoice-ka oo wallet to wallet macnaa aniga walletkeyga oo kaleeto ama haddaan 2 account leeyahay walletka inta walletkan lacag laga tuuro walletka kale lagu tuuro ama qof kaleeto oo founder inuu walletyada dhexdooda lacag la isaga tuuro sida hadda ma arkino Soomaaliya ma aragto qof uu mobile lacag uga tuuri karo camal waxa arintaas iyadana wuxuu yiri oo ka dhawaajiyay oo malaha dad su'aalo soo weydiiyo qoraalo loo soo qorqoraayay marka wuxuu yiri option kaasu wuxuu yiri waa imaan doona ma ahan yiri wax hadda oo aan ku degdegayna ma aha sababtuna ma aha inaysan sameey karin sababtu ma aha inay ku adag tahay hase yeeshee maadaama waxaan ay cusub yihiin shirkadda qaabkeedii iyo ganacsigeedii iyo sharcigeedii iyo wixeedii adduunyada dhan in wixii maaragtay laga foojignaado markee waxaa jirto anaga heera miskiinana dadka miskiinta ah oo la taakuleynayaan laakiin shirkaddan waxaa laga yaabaa inay ku jiraan dad waaweyn oo cadow oo waagii dee aasaasnimada iska horeed akaamo ka gatay oo ulajeedo kale oo maaragtay oo ama war ha xadaano ama teknolojiya ha xadaano ama xaasidnimo kale ha wadaano dad waxa jira fursadaas markay fureeday accountyo furtay marka lacagta la kala wareejinayo musuqmaasuqa lacagta la yiraahdaa af ingiriiska waxa lagu dhahaa money laundering asagoo ka shakisan ama ka cabsanayo ayuu wuxuu yiri xoogaa yar ilaa iyo inta aan adkaanayno oo maaragtay aan iska xireyno meelaha maaragtay nooga imaan karaan qaladaadka ama dembiyada nooga imaan karaan inta iska xireyno wuxuu yiri waa ka fiirsanayna waa sugeynaa ayuu ka dhawaajiyay wuxuu kaloo yiri haddii ay ahayd tanum wuxuu yiri macnaa if this was the biggest wish macnaa wixii aad jeclaatay ugu weyneed haddii ahayd yiri it's done macnaa waa la sameeyay iska hilmaamo dhahay waa la sameeyay waa lagu guuleystay it's done anyone in any country qof walba meel walba wadan walba tuulo walba meel la meesha joogto waxaad awood u yeelanaysaa inaad kaarkaaga la soo baxdid subscribe aad dhahdid iyadan cid ku xayiraysa aysan jirin meel ku diidaysan aysan jirin aad awood u yeelan karto in aad transactionkii ama maaragtay lacagtii aad halkaas ka dhiibto markay taas dhacdo oo hawshaas ay bilaabatana wuxuu yiri waxaan ku daraynaa maalin walba productyaal cusub aan ku soo daraynaa ecosystemka sidaan hore u ogeynba waxa waaye safay ku jiraan wax walba oo behind the maaragtay daaha gadaashiisa lagu sameynayay muddo badan la soo sameynayay heerar kala duwan ay joogaan say u soo kala horeynayaan iyo sida maaragtay ay sameeskooda u kala soo horeeyo anaga ma naqaano laakiin anagu wixii la keeno waxaan diyaar u nahay mar walba inaan iibsano haddaan qofkii tabarteeda leh taladu waxay tahay inaad ka iibsato oo hal mar subscribe ka samayso sidaan ognahana subscription-kan waa one time payment subscription waay adiga affiliate tahay ka ganacsada tahay hal mar subscription ku samaynaysaa company-gana isaa ku iibgeynaya isaa ku xayeysiinaya lacagta uu ka soo qaado ama qofka uu ku keeno uu tiimkaaga ka soo dhigo wixii uu ka gado ayuu asugu qayb ka qaadanaya qaybta uu qaadanaya ma aha inuu jeebka ku shubanayo ogaawaya qayb adoo ku siinaa qaybta asaga oo qaadayo xayeysiintii ku sameynaa mar kaleeto kuugu iibgeeyaa company-ga iyo shaqaalihiisa iyo maamulkiisa waa inuu qayb loo dhigaa shaqaala ka shaqeeyo biilala ku socdo laakiin lacagta uu qaadanayo marnaba ma aha ashraf mafarax lacagta uu qaadanayo ma aha lacagihii ay qaadi jireen lacagaha ay qaataan kuwa shirkadaha waaweyn leh oo ay bangiyada ka buuxsadaan sida Bill Gates iyo Jeff Bezos iyo maaragtay Sergey iyo maxaa la yiraahdaa ninka kaleeto oo labadan inuu Google-ka iska leh lacagaha ay daldashaan ay ka buuxsadaan bangiyada oo kaleeto uma qaadayo lacagta uu hafka ka qaadanayo wuxuu u qaadayaa inuu shirkadaanu aysan naqanin shinkar bankruptcy inaysan naqanin biilalkeeda la dhiibo canshuurteeda la dhiibo
teknolojiyada iyo waxyaabaha innovationka ahoo ay maaragtay laababka ku samaynaysa lasii horumariyo mar walba new invention dad ayaa meel u fadhiya scientist niman dhaqaatiira oo scientist ah ayaaba shaqadoodu waxay tahayba product ma sameeyaan wax ma maamulaan ashraf mafarax subaxi inta soo wacaan lama sheekaystaan shaqadoodu waxay tahay inay inta meel soo fadhiistaan wax la dhaho brainstorming waxa la yidhahdaa tala wadaag fikir hal abuur inteen maxaa cusub horta sideedaba hal abuurka ama wax cusub oo adduunka lagu soo kordhinayo hadda wax cusub oo maajiga lama samayn karo laakiin wax hadda yaalla waxaa la fiirshaa wax ka qaldan wax hadda adduunka yaallo waa la fiirinaa waxaan adduunka ma yaali hamala isticmaal war waxaan see loo wanaaji karaa isticmaalkooda waa adag yahay see inta loo kala wareejiyo si ka sahlan loogu samayn karaa see loo qurxi karaa waa ogtihiin mobileka waagi hore telefoon waxaa jiri jiray weyn oo la qaadayo dhegta la saaranayo oo la wareejinayo waxaa yimid mid dhag sidii taabkii la garaacayo oo nabarka qoraya hadda waxaa yimid midaan number iyo button ba lahaynba oo screen ah marka inventionka ama hal abuurka hadda adduunka ka jira wuxuu yahay hal jiro ama laba meelood oo qofka u dhaxayso in qofka u dhaxaysa laga baxsho oo wixii toos laysu qabadsay marka nimankaasaa jiro maalin walba waxay u taagan yihiin u soo kacaan oo mushaar ku qaataan inay helaan hal abuur cusub inay helaan fikrado cusub product cusub sheeko cusub marka on passive productigeeda oon hadda ognahay inta ay la eg tahay midda digitalka iyo midda kaleeto oo inventionka kaleeto caadiga u dhahaya 3 prototype uu ka hadlayay ama ha noqoto dhanka caafimaadka ama ha noqoto dhanka quwadda iyo energyga ha noqoto oo dee ha dhowto kuwaas hadda ma aha waa markii digitalkan la dejiyo oo qof walba lacag samaynayo oo kambanigan oo caan noqdo markaasoo lasoo baxaya labadiisa bustoolo ma faham taasoo kaleeto iyo kuwo kaleeto noocaasoo kaleeto la samaynaya marka raalli ahaada waa ku dheeraaday oraa ugu sii soconaya marka nimankaas ayaa u fadhiya meel oo maaragtay lacagaha la goynaya waxaa loogu talagalay in kambanigan lagu hormariyo ashraf mafarax ma ka dhimanayo $100 milyan oo bangiga accountkiisa ugu jirto ka yaabin wuxuu ka dhimanayaa 100 milyan oo qofood oo milyaneera uu ka dhimanayaa sida afkiisa uu ka sheegay 100 jeer. We will start adding the new product into the ecosystem very soon means soon mar dhow ayaana waxaan ku soo diraynaa Odesk tracker wasdaba yaalin habeen hore ma qaan afkiisa walaxan ka dafada magad ka xiido ka skill weligay ma maqleen skill xala habeenkii ay ugu cusbad waa new product skill amazing staffan ogay skill atimida skill waa xirfad skill hal isbuuc gudihiisana we will start paying bulk payouts waxaa la dhahaa si oo xoog leh si oo wadar balki waxaa la dhahaa wadar markaa 100 qofood hal mar lacag u tuurto markaa 1000 qofood ama hal mar mushaar u shubto waa bulky payment la dhahaa waa wax oo jumlo loo dhiibaa waxaan u dhiibaynaa dhahay a bulk within a week we will start a bulk payout initially we will do payout every week اسبوع والبانا الديبا هو هاي العقد واغور وحي اجستي هل marka la baxda I think waa hore ma dhahaynay laakiin sida fikradu ay ahayd marka hore 15 maalin ayaad sugaysaa ilaa ay ka soo gaarayso dad ilaa hadda 30 ka maqan tahay laakiin 30 waxay uga maqan tahay macnaheedu ma in la sameeyo waaye macnaheedu waxa waaye system dhama la saxayo marka dadkaasaan ugu horeeyay dadka hadda wax la siinayo kuwa crypto ku dalbaday iyo kuwa kaarka ku dalbaday kuwaas oo hadda bendiga ku jiro الله فصحايا if you max out 25k per withdrawal then that's over $1 million a year max out وحكودا هذا max out وحنا كنا 25,000 هذه اسبوع لا بحاي هذا معناه dhaqaalaha soo galay haduu 25 kun oo naqdo commission kaaga oo aad isbuuc walba 25 kun la baxdo bishii waa 100 kun bishii 100 kun hadaad ku dhifato 12 bilood waa 1.2 milyan
وسيده uu sheegayo wuxuu yiri withdrawal then that's over $1 million a year hal sano ay ka badan waana oguhu yiri dadka meeshan joogo qaarkood ayaa saas sameey doona of course waa dadka liidarada waaweyn leh oo company-ga markuu 10 kun 20 kun qofood ay ku jirtay ku soo mid noqday ama ka bacdi yimid laakiin dadaal muujiyay oo webinaarada qaban jiray kulamada maaragtay muxaadarooyinka maaragtay loogu yeerayo dadka oo la leeyahay ka soo mid noqon passive liidarada dadka qaarkood sida Gusmando kaleeto sida maaragtay Mati Digamo kaleeto sida Red Fan kaleeto oo waxa jiro maaragtay 25 kun aysan waxba la ahayn a week okay ها ماشي أنا ومهم وحوي حلقة هذا ماشي جلو يرو يا ماركت كسوق يا الحلقة وحكوا ذا مركو حلقة هذا وحكوا ذا حلقة أو نمنكي العقد إن قاضان حمل وعي وكهلا يحول solutions that are typical on the market right now cannot handle us within more than 48 hours معناها واحد السوق يالو والعقها قاضو وترانسفير كما أركينو سمايو أما هنقطة بنك العكرة قضايا أما مارت ميل أو ترانسكشن أو سوق وحلقة قضانا معناه واحد السوق يا الله لأنه وحوري أفر سديدي أفر ساعة إن كبضن نما حمل كران أو كوضو هذا هالمليون أفر بقولوا كلوا قفوض يوحي قلتو كدن بي أو رسالة أو صقري هذه أي حال مركوية عن كبني كان العقد قاضايو انت سو بقولوا كلهم مليون دولار اي مارتي اسلافي سو مارتي within couple hours اما one day system كو اسكو خياعه marka wuxuu yiri xal suuqa ma yaalo marka laakiin xalki iyaga heleen wax walba oo aan rajeyneynay oo ku saabsan oo connect waxay dhacayaan November 10 oo connect-gana u jeedin hadda aan ku hadlayno maalin kadib waxba lagu daraa teknolojiyada sideeda waxa waaye hal mar bug lama soo siiyo waa ognahay Facebook dhowr 10 sano ka hor iyo 20 sano waxay taama qaar markuu soo baxay ku marka fiiriso oo mobile ka gasho waxay u akaad meel ciyaal dhil ay ku ciyaareen ay wax ku qorqoreen ay ku falaadeen maanta waa aragtay waxa waaye dhinac xayaysina laga tusaa dhinac masawir khatara laga tusaa dhinac qoraal dhinac maalin walba waa waxa lagu darayaa waxba lagu daraa wala marka wuxuu yiri oo connect 10 ka bisha November waa jamcaha soo socoto ma dhafuga wuxuu yiri is going to be sidii anaga u rabnay oo noqonaya typical market right now wax walba oo aan la jeclayn oo connect is happening by November 10 we will be ready in the next 10 days waxaad arki doontii feature cusub oo lagu soo daray and 10 ka bishana wuxuu yiri on passive will be position where I will be marketing for you on passive markaas waxay joogtaa oo yiri meel ay adiga ku xayisiin doonto on passive I mean o connect ay adiga ku iibgeeyo in a position where I will be marketing it for you wuxuu sii raaciyay hadalkiisaas video ku jira wuxuu sii raaciyay on passive wax ma galayso on passive shirkad iyo dadka lacag ka qaadaysa ee wax ka iibiyay maha dadka wax iibinayo oo magacooda wax lagu iibinayo oo iyagu dhaqaalaha ka sameeynayo oo on passive metelayso on passive anaga in metelayso laakiin iyadoo lacagta ma qaadanayso anaga inoo sameynayso lacagta way ka qaade way ka gede anaga in siinay nus waxa waaye wixii ku sameeyay wixii hadda aan ka hadlayo oo maarata maamulka I will be macna iyo wuxuu ka wada kalsooni I will be marketing because ninkaanu he's not going to market wax oo asaga oo arkay inay qiimo leeyihiin because shalay ninka ku dhaaranay wax qiimo leh oo qurxan leh oo raqiis ah on passive will be the market iyada suuqa noqon doonto on passive will own the internet macna waxyaabahan dhan oo ku dhaaranayo oo ku faanayo oo leeyahay waan qana macna ma dhihi kariyo marka ana idin iib geenayo macna wuxuu iib geeyaa mugaas wax qiimo leh ay noqonayaan oo ka wada I will be marketing for you macna kalsoonida oo ku qabo ayuu ula jeedaa bis wax weyn kuma xigaan inta wax xogto account-da founder-ka in la kala iibsan karin oo sheego oo aysan ahayn wax badeecad ah ee ahaayeen wax maaragtay la isku xilqaamay oo privilege lagu siiyay dadka ana sida daraaddeed inaysan ahayn badeeco oo aan macnaha qofna aysan iibsan karin qofna aysan iska iibi karin ayuu sheegay taas markii laga soo tago
assuming wuxuu yiri ka soo qaad haddii aan maaragtay maalinta jimcaha aan bilaawno payment processing, it will take at least 1 week to access for those who couldn't subscribe. At least 1 week ayaan siinayna ugu yaraan dadkii horay maaragtay iyagoon lacagta dhiibanin ay ka xirmantay ama u suurtageli weysay siinayna dhahay ugu yaraan 1 week. marka 1 week markuu dhaho 2 week ay noqon kartaa, 3 week ay noqon kartaa, 4 week ay noqon kartaa, Allahu a'lam wa rasuluhu. laakiin intii hore loogu soo jiray haddaad founders tahay, haddaad reseller tahay oo maaragtay shalay lagu soo biira aad tahay waa gooni oo waxa dhan bay cawda kugu cusub yihiin ama isbuucan kugu cusub yihiin. laakiin haddaad dadkii aasasayaasha oo kambanigan intaas ku soo jiray aad tahay, haddana wixii iyagoo bilaawdeen aad gadaal kala kuusatay, haddana markii aad u soo tallaab qaaday maaragtay oo dhacay in ay wixii xirmaan, haddana aan sugaynay 4 isbuuc aan sugaynay, waa inaad noqotaa qofka ugu horeeya oo safka ku jira maalintii la furo inaad gasho. inaad ka hadasho maaha meeqa maalin aan sugaa, 3 week maan sugaa, 2 week muu ku egyahay. taas sheekadaas waa dhamaatay. sababtuna waxay tahay markee 1 million customers oo cid keentay oo ama linki ku soo gelisay. Martin Digamo ma keenin, Chris Johnson ma keenin, Abdi Alaso ma keenin, you know. on passive waxay ka arkeen World Cup, on passive waxay ka arkeen Burj Khalifa, on passive waxay ka arkeen meel walba YouTube ka raadiyeen, Google ay ka baareen, way arkeen, waxay ka hadlaysay arkeen, way they sign up, way saxiixeen, email ay samaysteen, waxay ku jiraan maaragtay qolay ku buuxaan. marka on passive ma qaadanayso, on passive uma baahna lacagtooda, on passive uma baahna affiliate-kooda. on passive annaga rabtaa inay naas nuujiso, annagayna siinaysaa, weliba waxay siinaysaa dadka aasasayaasha ah oo aan horeyna qoray linkigooda hore loo u qaybin oo maaragtay oo aan qofna u joogin, isla markaasna sida loo soo kala horeeyay ay tahay. 2018kii laga soo bilaabaa dad isdiiwaan geliyaa jiro 2018kii oo adiga ka xoog badan oo on passive ku jiifto ku soo kaco. adiga 3 wiig laga yaabaa inaad maqnaato oo hal maalin aad timaado groupka aad fiirsid, 2 isbuuc markaa webinarkan uu ku gooyaa laga yaabaa inaad isbuuc daba timaadid. dad waxa jiro aan linkigooda hal qof la gargareynin 2018kii 19kii ku soo biiray shirkadan. sababta ay ugu soo biireen waxay ahayd ma rabaan inay bini aadan wax kala dhacsiyaan, ma rabaan inay dad wax u sheegaan, markay horey ugu soo daaleen ganacsiyo garab la fidinaayo, multi level marketing, hebelo u sheeg maanta qof negative wax kala dhacsi, way ku soo daaleen. shirkadan waxay u soo galeen, waxay ogaadeen Ashraf Mufarax iyo wax uu ka hadlaayo iyo productiga oo iib geyn doono qiimahooda iyo xoogooda ogaadeen. waxay ogaadeen inaysan u baahnayn inay cidnaba cid u sheegaan, wax u sheegaan oo kambanigan uu u market gareynayo oo u iib geynayo. marka dadba isku mishideynba, dad maalin walbana u soo taagnaayeen, webinar walba taagnaayeen, Facebook walba oo comment ka sameynaa, YouTube walba like saaray, hal maalin aan ka maqnan Ashraf Mufarax meelo ka hadlaayo. 5 sano shirkadan saas u soo shaqeynaayo, Facebookyada oo gruubyada ku jiro, commentayaasha kala celinayo, ya dadka ku soo dhaweynayo, hadaladooda ka jawaabayo, 4 saac u taagan, laakiin aan qofna keenin. dadkaasoo kaleeto waay dadka xaq u leh, dadka oo on passive ay suuq keentay. dadkaasaa laga bilaabayaa ilaa iyo say usoo kala horeeyeen. kuwii xoogaa dad haysta waa laga boodaa, waa loo qayqaybinaa. seekalka saas ku dhamaanaya. seekalka ku xigo jamac waa dadkoo dhan waa everyone, reseller, founder, everyone, this company waa. I think it is astaan umalaynaya inaan qaldanaha laga yaabaa. Ashraf Mufarax habeen hore wuxuu yiri su'aalaha qaarkood la weydiiyey xataa kama jawaabin. wuxuu yiri yaanan ka hordegin kambanigaanu wixii u roon dadka asaa yaqaan, ujeedada dhammo loo sameynaya waxay tahay inaan qofna laga tegin, in qof walba oo horumar ka gaaro. marka wuxuu yiri su'aalaha ma waa su'aashaas waxay ku timid markuu soo hadlaayay qofa waxay dhahday oo verified ka la isku cadeynayo account qof adiga mas'uul uga tahay hadda isku verified gareysay ilaa account-ka qof u maamulooysa ina siisa marabtid waxarta ina xoogaa u hayso, ama canugaaga oo saqiir ah naqayo oo aan qaan gaarin, ama qof waayeelo oo aan aqoon ha naqato oo maaragtay ama kaa fog account-ka adaa u iibisay waad u gaday
in la verified gareeyo waa account-ka waa verified gareey see marka hadhowta ugu wareejiha su'aal camal ha la weydiiyo markaas wuxuu leeyahay horta oo verified ma aha wax banaanka aan ka keenay oo verified anaga sameynay waa technology 100% AI ah shirkadana iskale laakiin wuxuu ha ka horboodinina kambaniga ha korboodinina asaa yaqaan wax roon iyo wax saxda xalna mar walba asaa haayo saasoo kaleeto marnaba walaalaha Soomaaliyeed meesha ku cusub waxaan u sheegayaa founder iyo non founder iyo shala imaad iyo darraad imaad waqti xaadirkan meesha aad joogtid waa guuleysatay iga qur'aan waqti xaadirkan meesha aad joogtid maalid on passive oo 4 milyan ugu badnaan 5 milyan dhaxta qofood ay ku jirto beriga today aan kula hadlayo 2023 ay dhamaanayso ay ku jirto hadda ka register garaysan tahay wixii ka reeba oo adoo hurudo helmaanto oo biin markaaga iyo passwordkaaga helmaamay oo aan badanka yeelan ma ahane haddaaba joogto oo waxa laga hadlayo la socotid oo guula gaartay sababtuna waxay tahay billions of people la gadaashada imaha on passive qaadamayse sidii loo soo kala horeeyaa loo kala qaadanaa marka dad iyo ina lacag ka sameey doonto iyo ina horumar gaar garto shaki ha ka haro muhiimaddu waxay tahay la soco Soomaalida waxay tahay ninka seexda saciid dib dhala hadda seexato if you snooze you lose ee dhangaalada subaxdii markaa shaqo ugu jarmaadaysid oo saacada al-armiga ay ka kaciso hurdo ku hayso waa dharbaaxe 10 daqiiqo ku sii hay hadana waa dharbaaxe 10 daqiiqo marka dambe saddexaad ka kacayso waa kula tagay if you snooze you sleep was exactly ma mahayda Soomaalida camal waayo ninka seexda saciid dib dhala on passive hadda ku jirto waa guuleysatay su'aalaha macna darada seen wax ku geenaa iyo maga ganacsi la helo oo on passive ka wanaagsan adduunyada meel uu ka jiro male runta hadda isu sheegno ganacsiyaal waxa la geliyaa millions la geliyaa boqolaal kun la geliyaa ugu yaraan 10 kun 20 kun dollar waxa la geliyaa meherad yar oo maaragtay farash yar la geliyaa dukaan yar ama wixii raba lagu gado la geliyaa koronto la bixina biyo la bixina lafahaaga subax u jarmaadaysa saacada ku soo dhuminaysa qorraxda kugu soo dhacayso أنا وحسن هليس إنه وحكى له تدكان كحسوا جدي سبيل الموجودية أرساق يا فتاح وقعله محن هلا حتى قصق الشركة ده محن هلا وحيل هلا إلهي أو لكن مهم ده وحيد وح أن أجنى هاي يوح أش بفرح أفتيك الشيء يوح على جنا صنع يقيم هذا مركا صفيرسو يقول الجدريو إن أجد لقى فجيو شك كمجري إنه هو مركا رئيسي وحلا جرب كليه إنا أكتيف نقطة وإسبرتيت motivated and participate ماشي wax ka jiraan meel ka muuqo ama ka maqnaa way dhahan Soomaalida you have to participate ina isbuuc ka maqnaatid oo aan wax dan kuugu jirin WhatsApp TikTok arrin siyaasadaysan mid qabyaaladaysan macna daradaas oo dhan is a waste time wax dambi ka soo galay wax dana kuugu jirin faa'iido this is the best place you can be meel ka wanaagsan oo ay joog lahayd ma jirto dadkan halka isku barateen walaalaha Soomaalida inaad qofka ka ron su'aalo la isweydiiyo la kala faa'iideysto la isriigeliyo as a community inaan dad xoog leh oo isjecel oo fishinka iyo ulajeedada iyo muhiimadda shirkaddan aan fahamsan inaan naqano waaye sheekadu inaysan naqanin waaye aniga hadda ashmu farax xulay maalin hore haddaaba ka hadlaysid oo dhahay team kaanaan keenay 1000 qofaan keenay 500 keenay milyan aniga liidaraan ahay hebelo ahay waa iga dhimatay yiri gadaalan ku tuura waa iga dhimatay no it's not about leaders it's not about people it's not about aniga ma aha waa unity heart ya caawise ya wax u tartay ya wax siisay ayu macna bini aadamka dhibaatada adduunka jirta tomorrow adiga markii 10 million soo gasho what are you going to do waa laga hadli jiray sanadii hore waa laga hadli jiray sanadkan bilowgiisa iyo 2022 waa laga hadli jiray diyaar ma u tahay noloshaada isbedelayso diyaar ma u tahay maanta $1 million akan ku arto diyaar ma u tahay what are you going to do ila lacagtu waa fasahaad waa ogna lacagtu waa fasahaad meel badan ay dadka geysaa maxaa ku qabanay waxa laga rabaa inaad ka sii fikirtid meeshii waxa qaba lahayd qofka caawi lahayd iskoolka dhisi lahayd
si aad adduunye iyo aakhira kaamil u heshid. Don't forget about that. Yeah? Don't forget about that. wuxuu kaloo ka hadlay 2023gii bilowgii sanadkan hadda dhamaanaya waxaa jiri jirtay mararka qaarkood 2 ilaa 3 ya waxaa jiri jirtay oo options oo dad raba inay nala shaqeeyaan oo anaga soo raadsanay shirkadda on passive ayaa waxa soo raadsanayaan shirkado kaleeto ama shakhsiyaad caan ah ama dad si uun raba inay lugto socodka ku darsadaan la lugeeyaan la sheekaystaan 2-3 aan heli jirnay oo aan kala doorano keen ka qaadanaa maanta 2 bilood ugu dambeysay wuxuu yiri waxay maraysaa heerar shirkado ay kor u dhaafeen partnership. But the past 2 months it has been companies competing to be attractive to us. Companies ayaa waxay isku dagaalamayeen uu yiri inay anaga isku kaan dagaalaan ay iska competing to fight wuxuu yiri the companies competing to be attractive to us. Attractive waxa la yiraahdaa in istusaan أنا يجي ده عن هاتس يجي ده أنا يجي ده وإكنا أنا سانا سميا وحنا سميا كراها إلى هذا العمل مركا حكينا يا وحاس وحكينا يا وحويرو بركي وحي أركين إننا عبسنين وحان هينو how fearless we are وأمارة أن أسوقلين السوق وأن أكبر سنة هاي وأن قوة لنا هاي أنو نقولوا وحيب جينين مارة أنت سو بقولالكم وكاستمرسا meelaha aan ka soo muuqanay ciyaarihii World Cup-ka 2 dabaq Burj Khalifa macna waxyaabaha ay sameynayaan macal teknolojiyadooda ana waxyaabo kale oo badan aan ogeyna way jiraan laazim oo shirkadahaas ay rabaan inay saanta ugu darsadaan on passive. There are so many things we don't know haddana ku sheega aniga aan saan hadlaayo iyo dad kale walaalaha kale taa iyo kuwa kale aniga horeeyo cadaan ee muslim on passive waxa ay tahay waxaan ka ognahay yar 5%, 10%, no, not even 3%. On passive is big, believe me. Never will you do a company and lama arkin technology and arkin mail will be all look to glass or mail will be look to glass or أدونك كمان عن كمبني هل من أفر بقوله كونه قفوا شركات إسف وجرت إنه كاستمر ولا قط كو تازا كوجا وليه بدأليش وعارف الدكان لفروع يا إرساق يفتح على شركات لفروع يبقى أنت إذا بعد اللي بالله حيسين تد كمبني كان شاس تحصل لا بصروا حيسينوها والعقب بحينوها يا وول كاب أنت مو قياله وول كاب فيفا ما عيار إنه برج خليفة الله بدأ بقى أو أشد صرت أصدر أدونك وقدر عيار مية إن ترين ستيشن كيالو إنترنت عيار ما أنت صار الحاجة وايش يسمون ذات محلو سمينا وحصل محلو سمينا يا براند بني آدم مستحيل اللي قد قاعد ما أركينه ضدك تلفونك أبل كصفك وقلها ما عرفت الصبح مركون صبح آيفون 14 حلقة ذا 13 14 15 اسكتران ما لنا اللي قدوها يا واسم واحد اسبدل مجران لكن براند ده كواليتي ولا محمد لكن هو براند مسكحة اللي قد جاي $2,000 وقرت dad walaalaha masaakiin oo Soomaaliya laga yaabo inay bari qalayaan xukuumiin iPhone 14 ah sallallahu alayhi nabi aqalga shaqeeyo domain is coming yeah domain hadii timaado shaqada waa isku dhacda domain waa domain hosting website macnaheedu waxa waaye hadda on passive garabkeeda ku jirta linkiga waa subdomain waaye hadii la riixo adaa ku qoran sax oo qofka iska diiwaan galay adigoo hoostaada imaanaya on passive ما عرفت piggyback سيدا عم أكنه عنو يرو صغيرة يدوت هو ده لكن دومين كمركو إماده أو www.abdalso فردوس كود أمينو محمد قفل ويب سايت كيس أو ياشو وحتى digital real estate digital real estate وحالي هذا قريه بدن لما أكنه digital وحلاده ويب سايت شركة أتا on passive يراتا هذا on passive ير أنت سو برودكتي on passive هذا هذا digital تاعي هذا تاعي أمازون أو شوب تاعي أو شوب هذين أو محل هذا فكرة محل هذا
oo shopka iskalaabkii kale maxaan isu aga maqan yahay whatever oo company-gan uu gadaayo ama ha muuqdaan ama yaysan muuqanin magacaas oo yar aad tahay oo socda you are company adaaba company ee muga u diyaar garow barashay rabtaa isdhidhil maaha macnaha barasho xoog lama aha waa inaad ogaataa qiimaha aad leedahay marka hadaa qiimaha awoodda dad ogeynin waxa waaye meel aan ku qalmayna ku dhexdhexaysaa you have to know a strong position that you be hunted markuu waa lagu ugaarsan doonaa markuu ku leeyahay macnaheedu waxa waaye dad badanaa kaa masayri doono maxaa keenaya maseerka markii booska ay joogto qiimaha leh shirkadaanoo aan muddo hore aad ku soo biirtay oo aad fahamtay safka hore aad ku jirtaa 100 milyan kaa dambeey doonto 100 milyan qof kaa dambeey doonto marka excitement u diyaar garow waxa oo ambassador ay soo wado iyo sida noloshaada ay u bedeli doonto Ambassador have businesses and orders from all media avatar for virtual backgrounds. You will have 3 options. What about wax weyn maaha wuxuu ka hadlayaa backgroundka oo connectigan backgroundkiisa iyo xasu ka hadlaya iyo all media waa arteen avatarka gabadha oo newska sheegayso qofkii uu eg tahay muuqaalkii codkii ay leedahay waxaan aragnaa hadda oo jira avatar oo erayadii qore qofkii ama nin Mareykan ka dhigay ama naag Mareykan ka dhigay ama luqadda arta u bedelay sax way jirtaa taasada laakiin qofka u eg oo idaacadii aqrinayo oo taagan oo idaacadii sheegayo oo hadalkeedii leh oo codkeedii leh oo media ay keentay safaa loogu jiraa hadda war waxaan wax naga siiyay tus al dhoowa oo media waa qayb kamid ah waa qaybta ay xukunto Professor Susan Al-Qalili naagta dhahayo Egyptianka oo media qayb kamid ah on passive waayo oo ku maartay dhinaca xayisiinta marka wuxuu ka hadlayaa hadda qoraalku waa sii dheeraya laakiin wuxuu ka hadlayaa on passive oo caawin doonto ma aha shakhsiyaadka aniga iyo adigoo kaleeta oo maartay affiliate ka sameynayo oo inta productga subscription ku sameeyo maartay loo iibgeena kaas kaliya on passive waxay xal u helaysaa shirkado badan oo kacitaanka wax wada dhaqaale xumo macnaha bankruptcy noqda oo ama aan korin wax korin leeyahay aan sameeyno last 5 sano soo dhaafay 4 shaqaalaha hadday haysteen inay shaqaalihii dhiman ma ahayn aan shaqaale kordhin inay sanadkii faa'iido sameeyaan iska dhaafa maalin walba lacag dhuminaya on passive shirkada noocaas oo kaleeta ayay waxay u helaysaa xal solution oo ah in ay dhaqaalahooda kordho ay shaqaale faa'iido sameeyso iyagoo isticmaalaya qalabka on passive teknolojiyada on passive oo maartay dhan walba noqoto xayisiintii ha noqoto anything oo laga isticmaalo oo shirkadu ku shaqeyso human resources software-kii ha noqoto whatever it is shaqaalaheeduna u kordhaya marka intaas oo ka hadlaya cost effectiveness oo ka hadlaya utilization on passive tools how to revenue generation on passive tools and solution ensures that customers upon becoming users customers ku iyaga customer kooda shirkadda customerkeeda hadday shirkadu inta wixii isticmaasho ay affiliate-kii aragto ee ay customerkeeda ku sii qalqaaliso ee customerkii lacag sameeyaan customerku markuu lacag sameeyo shirkadii wax ka iibsaya isku naqnaqalaysaa shirkada dhan waxaasoo ka hadlay raalli ahaada waa dheereeyey runtii driving the business growth the new founders flourishing the business intaasoo ka hadlay wax kalood ma jiraan waa wax oo beri anaga wax nuquseeyo iyo waxa jiro waxaan nuquseynin runtii way iska wanaagsan tahay quwadda oo ambassador leedahay iyo qalabkaan qiimaha uu leeyahay inaad barato oo aad dhan kale ka fiiriso waa waxyaabaha naga dhigayo hurdo la'aanta lagu riday ka mid tahay oo aniga aan ka mid ah aniga ambassador haddaan hadalkeeda bilaabo maanta waxaan u talagalay maxamed waadi waa kana la joogay aamino haddootan soo hadlayna group ku hadlaynay waxaan dhahnaa waxaan wixii naga qusayaan ka soo qaadaynaa 15 daqiiqo aan ka dhigayaa maadaama caawan nafis naga maqan tahay 15 minutes oo soo gabagabeeyna xogaa yar muhiimadda u taataabana laakiin waxaan ogahay anoo madaxa xanuunayo oo daalan salaadeedii subax soo gashay on passive haddaan ka hadlo ma aqaan meelan ku joojiyo maxaa keenayo waxaan ogahay quwadeeda xoogeeda qiimaheeda ashraf farax daacadnimadiisa sida uu wax u rabo sida nolosheeda isu bedeli doonto
dadka Soomaaliyeed inta ku jiro aan u yeero iyaguna si noloshooda isu bedeli doonto waxaan dhan marka la isku daro anoon wili shilin on passive leedahay cunin oo ilaahay la ogyahay last 2 days ago marka on passive oo connected EV inta aan la joojinin xogaa sariido iga soo gashay laakiin wili kala ma bixin bangigay meeshii ay ku jirto waladkay ku jirta waa inta si kala had dhowr akaanaan leeyahay dhowrka akaan waa ku jirtaa ma isku day niideeda hata kuma soo dhicin inaan kala baxo alxamdulillah waa ka maarmaa waa shaqaystaa biilkayga waa bixi karaa saasay tahay oo aanan doolarkeeda cunina 2 sano iyo 9 bilood ay dhamaatay umaleynaa March 2021 22 23 April May June July August September October November wa 2 years and 9 months hurdal anti iyo farxadda aan ka qaaday every day wax walba uga dhaco waa ogahay life will be changing alhamdulillah hadii caafimaad iyo cimri isiyo in everything will be okay waana waxyaaba igu qasbaaya marka hadal bilaabay aanan jooji karin marka walaalayaal soo dhawaada haddii dadkiina hore noola joogi jiray oo on passive la socdo iyo maaragtay ama ka dheregsan alxamdulillah walaalaha kaleeto oo nagu cusub su'aalahooda haddii ilaahdo waqti loo helo waa laga jawaabaa laakiin muhiimaddu waxay tahay ogow waa fiican tahay qofka markuu su'aal qabo ay curious waaye waa fahmi karaa anigaa su'aal qabay marar badan qabi jiray laakiin waxaan uga dhergay jawaabahooda waan dhegeysan jiray inta badan waan dhegeysan jiray shirarkaan tegi jiray su'aalihii aan qabo dhanba aniga aanan waxba weydiinaan aan fahmo marka kulamada noocaan oo kaleeta markaad timaado habeen sessionno oo Q&A ahaan qabahaynaa kaliya oo ugu talagalna walaalaha resellerska mar walba in lagu celceliyo waa laakiin mar walba dad cusub soo gelay guruubina hal iska caawiyo yaan la daminin hal naqato su'aal iyo jawaab maalin walba dad cusub soo gelay ardu qofku su'aal ka soo dhiibo gruubka jawaabteeda lagu siina meeshana wax saa'iga yihiin waa lagu siina this is what is on passive dum lagu sheegayo sababta ashma farax u diidayo teeman dhisay iyo ebeloobaan ahaa iyo leader ina tahay dadku ha ku sheegaa leader ina tahay wax lagu dareemaa gruubka ana waa ka dareemaa hada gruubada ana aan ku jiro waa ka dareemaa who is more excited who's helping waa dareemi karaa aniga maanta qof aniga su'aal la ii waday aniga qof hadda inta soo boodo oo ka jawaab waa ka dareemaa dad aqaan oo waliba 3 bil madlaba xataa 2 bil ku jiro oo waxa ka jira oo ka active garaysan waxa arkay dad founders oo 2 sano ku jiro oo aan hal mar soo hadlaynin oo aan hal su'aal ka jawaabaynin this is about helping waa caawin iska canqabasho waliba dadka la caawinayo Soomaaliya u liidato markii Soomaalidu generation cusub runtii waxa waaye waa dad aan luqadiina ku adag tahay isla markaasna teknolojiyadii wixii ka yaqaaneen kaliya sida loo bedelo kaliya maxaa la yiraahdaa WhatsApp iyo TikTok iyo loo daawado waxyaaba qaarkood soo dhawaada raalli ahada we are excited and we are on the top and we will win it inshallah guul baan rajeynaa we will win. Assalamu alaikum.